iyo diinta xildhibaan saalax shariif sayid mudane soo dhawow. بسم الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركوات وزيرك وزارة هوينك أي حقوق الإنسان وزيرك حقوقك أي وزير الدولة وزيرك حقوقك وزارة قاشندقة تليك حقوقك بوليسك قدومي كحجينك arrimaha bulshada gobolka Banaadir gudoomiyaha haweenka qaranka iyo gobolka Banaadir dhammaan haween weynaha Soomaaliyeed booliis iyo military iyo shacab dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. bacda salaam sidaan la wada socono haweenka waa laf dhabarta bulshada Soomaaliyeed waay haween weynaha Soomaaliyeed ama caalamul islaami haweenka ku nool diinteena islaamka aad ay u karaameysay diinta islaamka maxaa la dhahay waxa ogtihiin suuradaha quraanka suuradaha ugu waaweyn waxa la dhahaa suuratu nisaa suurad la dhahay suuratu rijaal ma jirto laakiin waxa jirta suuratu nisaa waxaad ogtihiin haweenka kaalinta ay ku lahaayeen fidinta diinta islaamka iyo jihaadka iyo khayrka ay ku lahaayeen aad ogtihiin waxa way qofkii ugu horeeyay ee diinta nabiga sallallahu alayhi wasallam markii lagu soo dajiyay rumeeyay u gargaaray ee hanti iyo wax walba ku bixiyay haweenay ay ahayd waxay ahayd ummuna khadiija radiyallahu anha wardaaha sida oo kale waxaan ognahay haweenaydii ugu horeysay diint qofkii ugu horeeyay ee diinta u shahiida ee loo dhiba ee loo dila ee shahiid noqday islaamka waxay ahayd haweeney marna marna aala yaasir gabadhii ahayd waxaa way marka diinta islaamka haweenka waxay ku lahaayeen kaalin muuqata oo ah islaamka bilowgiisa jihaadkiisa ilaa dhammaadkiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam meel walba uu maraaya waxaa garab taagnaa haweenkii muslimaadka ahaa waagaas noolay oo ay ugu horeeyeen ummahatul mu'miniin ridwaanullaahi calayhim ajmaciin marka waxaa waaye haweenkeena Soomaaliyeedna waxay dayasho u yihiin haween weynahaas oo ummadda islaamka kow ka ahaa marka kaalintaas sidaad ugu soo muuqataan sida wanaagga aad u shaqaysaan aad ayaan u bogaadinaynaa ka wasaaradda awqaatay arrimaha diinta ahaan waxaan idin leenahay mar walba guulaysta 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 waxaan ognahay walaalayaal waddankeena dhibaato badan ayuu soo maray 30 sano dhibaatadaas dadka ka badbaadiyay ee waddanka marna badbaadiyay ilaa haddana dadka marna garab taagan haween weynaha Soomaaliyeed way marka waxaan aad ugu faraxsanahay kulan saan u weyn oo saan u qiimo badan in maxaa la dhahay wasaaradda haweenka ay soo qaban qaabayso ayadoo la kaalmaysanaysa wasaaradda awqaafta arrimaha diinta sharaf weyn ay inoo tahay marka waxaan rabaa haweenka doorkooda islaamka inuu muuqdo diinta islaamka faafitaankiisa haweenka koow u ahaa axaadiista ugu badan dadka laga soo wariyay oo nabigeena ka soo xigtay waxaa ka mid ahaa ummahatul mu'miniin Aisha radiyallahu anha wardaa ay koow ka tahay marka waxaa way haweenka faafinta diinta jihaadka horumarka dhan walba hormuud ay ka ahaayeen saas oo kale haween weynaha Soomaaliyeedna waxaan ka rabnaa kaalintaas waaba ka soo baxdana waa ka muuqatiina inaad sii laba jibaartaan haddii ilaaheedmo waddankeena sidaan la wada soconna laba dhibaato haysat dhibaato amni iyo dhibaato abaar waa wixii ilaahay laga magangelayo way oo nabiyadana ilaahay markay baryaayaan ay ilaahay ka baryi jireen
إلهي جل وعلا نبي الله إبراهيم إلهي مركو بريا وحيري وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أمني إيه أمان إلهي كبري جرين سيدا أوكلا إلهي مركو قريشته كوكا الذي سنه وحيري الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لبداس مشكلة أو إلهي لما انقل أو جوعي خوفه أيا ودن كان هذا هايسته لبدنا وحا سبب خوارجتان ودن كوهبستي marka haddaan saqabna khawaarijtan oo sida hadda dadkii igu hore ay sheegeen oo guryaha loo diida gabaad loo diida guurka loo diida oo maxaa lahay aan takoorna waxaa hubaal leh waddankeena amnigu noqonaa amni hadduu noqdona barwaaqo iyo horumar ayaan wada gaaraynaa marka walaalayaal soomaaliya waxaa ka socda jihaad way dowladdeena soomaaliya دولة إسلام وي دولة مسلمة وي بقول كيف بقول عالم الإسلام هدا وريكتين ودا ماذا عربته ودا بقول كيف بقول مسلم أو يريه هاي لكن صومالي إلهي وحنوق الله ذا يستي دولة يو شعب بقول كيف بقول مسلم مركو حاربا لباتدان وحالو وضا إن تتكان إن مركي لدبا لقحية قار ميلا يكون عن المهني أنا كلا إردون كدب المهني ميلا كلا إنه قال يسيال ربا marka walaalayaal waxaan rabaa in laga wada shaqeeyo amniga Soomaali guud ahaan gaar ahaan gobolka Banaadir aan ka bilaawno Soomaaliya uma hinna amniga ka shaqeyn inaan dawladda garab istaagno Soomaaliya uma nihin in cadawga aan la dagaalano Soomaaliya uma nihin cadawgan ogaada haddaan iska dhicin weyno aan dhahana aan cabsanana nama deynayaan qofkii ka aamusana ma deynayaan qofkii ka hadlana marka waxa way adoo dulaysan oo cabsanaa intii dhiman lahayd adoo sharfan oo jihaad ku jira oo ajar maxaan lahay hubsanay inaan dhimana ayaa fiican soo maahan marka walaalayaal kooxdan waa u jeednaaya waa kooxdii nabigeena sheegay sallallahu alayhi wasallam nabigeena wuxuu yidhi duuba liman qatalahum aw qataluuhu waxaa sharaf u sugnaatay duuba waxaa la dhahaa jinaad waxaa iska leh qofkii khawaarij dilo ama ay dilaan soo marna dhoobaankaas inaan soo marabna inaan jannada meelaha ugu fiican inaan galno soo marabna waa in kooxdan la iska qabta waaye marka kooxdan waxaad ogtihiin waxay ku shaqeeyaan wax la dhaho hadmu diin biismi diin diinkii ayay diinkii ku burburinooyin ayagoo diin sheeganay ayay diinkii foolxumaynooyin diinka islaamka qof muslim in la dhawa iska dhaafe xayawaanaadka in la taabto ma ogola geedaha in la taabto ma ogola wax walba ilaahay waa qiimeeyey sharaf ay leeyihiin qof bani aadan ayaad aragtay say u dhaqmayaan qaraxyo maxaan lahay ay samaynayaan intaas oo dhan wax ka soo horjeeda diinta islaamka way diinta islaamka nabigu wuxuu ahaa raxmadu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nabiga ilaahay naxariisu la soo diri kuwaana cadow way oo khaa'imiin oo khawaarij way marka in la iska qabta hadafkooda waxaa way in waddankan ay saxro ka dhigaan oo ay baaba ka dhigaan kadibna cadow kale waddankan uu gumaysto marka waxaa muhiim ah hadda waxaan cagta saarnay waddadii fiicanayd marka dadka naga dhintay waa shuhado way dadka dhintay oo hadda naga dhintay shuhado way shuhadadana ma dhamanina way nool yihiin إلهي جل وعلا له ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله كو الشهداء مد منا وينوليهين قبل قوضا يكونوليهين دتكي شهداء وين مغلايان نولل برواغا يكجران فرحين بما آتاهم الله وحي إلهي سي أو نعمي خيره أي كفر حسيهين مركب وحاواي كو دنتي وكو قلبيده كدنتي ايغو نورواي لكن dadka shuhadada waxa raba in lagu daydo qudwa xasana lalahaado adduun qof noolaanay ma jiro anteena qof noolasha ku badbaaday oo si joogay ma jiro ayna ma takunu yudrikumul maut meel walba aan joogna geeridu wayna heleelay laakiin waxa raba in la dhinto adoo sharaf leh adoo khayr ka shaqeynay adoo wanaag wada inaad dhimatidaan rabaa خوارجتان
waxaad ogtihiin waddanka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u aaminsan yihiin dad aan diin haysan Soomaali taaka walb halkii kiiloomitir meeqa dugsi quraan ku yaal boqolaal ma aho qof muslim leh oo cunugiisa dugsi geeyey oo qur'aan baray oo xaafid noqday kadib cunugiisa u dirsaday inuu cilmi u soo barta oo cilmi u soo barti ayaa mararka qaarkooda cunugii intay maskaxda ka xadaan ayaa waxay leeyihiin aabbahaaga qur'aanka ku soo baray iyo hooyadaada qur'aanka ku soo bartay gaalay ahaayeen qof gaale eh cunugiisa dugsi ma geynaa iya qof gaale cunugiisa dugsi mudira marka waxaa waaye waan dareemi karnaa waxay la dagaalayaan caalamul islaami markaa fiilisiin waddan boqolkiiba boqol muslim ma jiro Soomaali laakiin boqolkiiba boqol muslim way marka waxay rabaan inay koox gaale ay keenaan koox maxaa la nooc kale ay keenaan dad diinta ka baxa ay keenaan boqolkiiba boqol muslimtaan ayaa dadka dhiboys marka khawaarijtan waxay la dagaalamayeen waxaa waaye in waddankeen islaamkan ay ku faanaan in laga xishoodo oo dadka islaamka markii la arkaba qof sheekhe laga naxa ee maxaa la islaamkii wax kale ay u abuuraan ayay ka shaqeynooyin marka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay garab taagan tahay haweenweynaha Soomaaliyeed mar walba xaqooda waajibaadkooda inay helaan waana dhiirigelinaysaa waxaan rabnaa waajibkiin inaad ka soo baxdiin kaalintiin waa muuqataaye inaad sii laba jibaartiin rabnaa waxaan rabaa faraskaas soo ordaaya usha waxaa loogu dhuftaa inuu sii dheeray marka haweenweynaha Soomaaliyeed oo wasaaradda ay hogaaminaysa dadaalkooda waa muuqdaaye dadaalkooda waxaan rabnaa inay sii laba jibaaraan hubaal waxaa ah intaan haweenweyne iyo shacab ah qof walba haddii amniga uu ka shaqeeyo magaaladan amni ay noqonay waxaa way hadda ka hor dagaal la wadaadiyaa leeyahay dad badan ay ahaayeen waa la isfahmi waayey ninaa marka wuxuu yidhi dadkaas ay isku fahmayaan waxaa talaa la soo jeeday waxaa la yidhi qof walba madax mayraxa looga xira way badan yihiin intaan yaa madax mayr uga xiri kara nin caaqil ah wuxuu yidhi nin walba asilay madaxiisa mayraxa ku xirta qof walbo annaga naga mid ah haddii amniga aan ka shaqayn muqdisho soo amni noqon mayso gobolka banaadir soo amni noqon maayo marka walaalayaalow amniga oo laga shaqeeyo jihaad way nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid qofkii hantidiisa loo dilo cirdigiisa loo dilo sharafkiisa loo dilo ama loo dhibaatay shahiid way marka hawsha aan wadno howl ajar aan ka helayno way haweenweynaha inay isku duubnaadaan dowladooda ay ku duubnaadaan inay ayagana wada shaqeeyaan dowladoodana ay la wada shaqeeyaan diinta islaamka waa idin sharaftay waa idin karaamaysay sida daayadiba aan sheegay aayado badan aan ku soo degi إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أنت نقول هوين وينها لو قال له يا مسلمين مركز دينك شرفها كليدهين دينت إسلامك مرتك متين دينت إسلامك هجانك إذا حاوي هواك الصوماليات واي مركز أساسي لو فهمتين إن شاء الله أنا كنا كوزارة أوقافتي أرمها دينت وحنكون دلالينا دورك هواك الصوماليات أي كليهين في دينت إسلامك إيو جهادك مرول بين موجنا دي لا هيدما مركز بلنتين وحاوي inaan diinteena aan marti qofna ugu noqon oo maxaa lahaay culimadeena aan garab istaagno wasaaraddeena aan garab istaagno aan iskaalmaysano aan isu kaalmaysano watacaawanuu cala albiri waataqwa ballanteena waxaa waaye in diinta islaamka gacanta midig aan ku qabsano soo maahan in diinta kow ay noo ahaat wax walba aan ka hormarin diinta islaamka سوماهن شرفها لذهين الله يدين شرفه إلهي وحن كرجين إلهي وحن كبرينا إن ودن كان أمني أمان نوقدين
إلهي وعن قبل إن ودنك إن أمني أمان نوغدك عدو هجبه عدو الشاف هجبه عدو هجبه صومالي هقول ليسته صومالي هقول ليسته هوين وين صومالية هقول ليسان صومالي قدان هقول ليسته هوين وين صومالية هم مذوبان دولة دول هل مذوبان صومالي قول إن شاء الله قول أن سورة جينا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.